haddii nolosha madaxeena talmooska laga doono ama lala mashaawiro raagan marag ku siinayn mulxidka iyo gaalada haddii lala majaaliso kaymahan maraaga haddii lagu xamaaraysto macdantaynu hayniyo haddaan maarkan la arkaynin oo aan la maamulan karayn malabkan hooraya way madalofta xaajadii muhiimadiis weydaaye بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ورأسين دقيسيال ميلك استوى عدكي ويدي كسو قاريو كنا سودة برنامج سوغانات كيني هيدي كيمي تري روكتا ورورينتا سوغانتي سويالكا قاليصور تضبات دقيسيال برنامجها وحين نقو مرتياه أبوان كوين إيد عبد كبره أبوان إيد ومؤلف تريا سوغانتا قيبه ذي كالدوان سدو كلا كما صودا لنعيد كالدوان السامين تبلشدا كله ومؤلف أمور بحي هو تصالينته بلشده وكل نحن بيهاي أبوانيد أي بربركي مديك فردية أو أن كسر وين دنا برنامجها إن إيد عبد كبر كسر برنامجنا يروك تورورين تسوقان تيسويالك قالصور مرحبا يا مريد وأنا كاجم هذا علنا مر لبعض إن وقت كاجا قالجا رنتي عبنا صورتي لقيستياشنا هل كان أيام تطبعات كان السوقان عجيبة أنا وعيار دورنا أو كم يدرون تسوقان هذا إن شاء الله تعالى أنت هنا هتبقى بيد يسوقان توجدين إن بدنوا بالشدة كم يدي وحي إيدو تشعلان الحياة إني وحكوا قادان إذا عبد كبره واقمة معناه إيد قرم ولا شيء حقوق ولا شيء حقوق صبر باري حنقات كيس السوقان تو قرم أيوها وهذا سؤال شو رسالة ويدي إذا قرم القياس سهل هذا وقت كذا لطي السلام عليكم ورحمة الله أود ما صنتها مولد أنا دلشدaydu كليتو waxay ahayd 60kii meelaha 1960kii xaga ku soo barbaaray halkan ku dhashay waxay ahayd magaalada Qoolbuula leh oo ah deegaanka Salaxley way deegaanka Salaxley ha xaga ku soo barbaaray kolgormiga ku soo barbaaray waxaan soo barbaaray miyiga way kadibna waxaan ku dambeeyay magaalada sidadku weyn u badan yahay way anigoo yar waan gabi jiray way marka soo aroos imaado sidii reemigu ay arsiray tagi jiray hay guddi baa la sameyn jiray askar baa la sameyn jiray dad marka soo askar la sameeyo waxaan jiray judo horeysa ama marka ku xigtaba sooka idabtan koro sooka way bartilmaameed badan ama wala xukumi jiray xukum baa lagu saari jiray inaan gabiyo hay amba waxa la dadka maaweyle waxa oran lahayd idina wixii aan hayo ayaan dadka u sii deyn jiray way marka waqtiyada waxyaabaha tirtirin jirtay ka waran waxaan ka xasuusataa kulleeyto waqti fogna way ahayd dadaalkiisa bari gabayga waan joojiyay oo maalintii waan yar joojiyay way oo aad baan mar dhex uga fogaaday gabayga way haddana waqti aan fogay baan sanad aan fogay baan soo laabtay mugta marka kulleey gabayadii kulleeyto badkooda iska lusan in aad xusna ma laga yaaba waatay aynu ku soo dhawaana bal hadda gabayada miiska inoo saaran dalka hooyo gabay kamida gabayada tirsi way waran oo aad kaga hadlaysay dhinaca dalka iyo nimcadiisa iyo dadku siday uga dhowayeen hadda gabaygaas iyo waqtigaada tirisay hadda in la wadaagtay isaga goorma ahayd gabaygu waxaan tiriyay bariya fogeyn waxa gabaygu dhaliyay runtii waxayna dal xora oo aan cidina haysanin waxaan dhulkeena markayna hoos u eegnay waxaan u leeyahay nimco fara badan buu leeyahay oo hoos taala hadday xoolo noolaatay hadday macdantii tahay hadday biyihii tahay wax badan baa yaala iyadoo waxaas jiraan ayaa haddana hal shay oo wixii la qaban lahaaya aan weli waxba laga qaban baahida dadkana waan arkay dabeetana sida gabayga aan markaa soo asaasahay marka gabayga wuxuu ku bilaamayaa bismillaahi raxmaani raxiim iyadoo haadii lagu jiro iyo halaskalileedka oo maal biyaha loo horo iyo hoobay lagu daalay halqiguna hawadii roobka iyo foora himanayo cirkoo heego iyo daruur hamasho soo saaray alla hidin kare maalintu cidu hanaynayo hubucumadee dhibicu waa hiriirig leeyahay hubucumadee dhibicu uu hiriirig leeyahay haddiise uu hareeraha ka maro beela hoganaya hanqalkiiyo waxaa lala kaca hadasho laabeede heemaalka muuqda iyo fadkoo wada hilaacaya halbeegsiga qiyaastiyo malaa lagu hujuumaye hilaada
iyo kolkaba way gartaan meeluu helay subaxa hayaangeedii baa lagu hawooday ha yeeshee hagaaf lama dirto iyo haydhaf iyo liide ragma wada hantee sahanku waa hawlo gooniye hiddihiisa nimankii lahaa qaata heesaha hiddihiisa nimankii lahaa qaata heesaha hirdanka iyo tallaabada waxay hogofka tuuraanba arla daadku holacyeeyey bay hore u gaadhaan godka harabiyeeye iyo cirkii jiifay baa hele mayaygaa huluulaha xidhkiyo hudiyey kaymaae waayadaa horweyn laguma furin waana haaribane turbalaan hagaagay iyo dhulka halabka muuqdaa hinjigiiyo waxay eegayaan heerka nawrigee hilba kororsi wuxuu leeyeebay hoosu dayayaane hubin waxay sameeyaan intuu jira hareeraae hadhsina kuma jira maalintaa way halgamayaane goortay habboonaato way himilo gaadhaane iyagoo lagu heeran yiin daalna halis jooga soo hoyday awhebeelladii haybadda lahaye hadalkiiyo bidhaantooda waa loo hamuun qabay goortay salaan kale helaan quudna loo hidiyo go'aankay hayaan iyo warkay hore u sheegaane hiyigiiyo haddii laga ballamo heerigiiyo guudka hurdo lama daneeyo iyo inay kala hadh yeeshaane hayimada hoggaan loo tidcay iyo herye lala boobiye habeenkoo madooba arlada laga hub qaataae kooraha halwanaya iyo markuu hugunku weynaado hareeraha hadday kala maraan foodhidiiyo heesta xoolaha horarka boobiyo dhurwa mahungurayaan jiilaalku baru hiigay iyo haydal baa jiree sidii ciidan heegan u baxay oo howlgal fulinaya oo hawsarkiisii wataa loo hitiqiyaa hirbislaaday baa lagu furaa himsahimsaha hirbislaaday baa lagu furaa himsahimsahae habla iyo haween iyo rag iyo hooye iyo wiilal waxaan loo hawalaya adduun horumar weeyaane habeenka hadhuub gocaah iyo hamaloo culaye waxay ka hirqadaan caanahay holof u jeedhaan hadalkan iyo waxay ga yihiin hadafku mahmaahe iminkaan halkaan doonayiyo hoosu degayaae dalkan hooye waa hodan markaan hooyey dheegowe dheeg waxa weeyaan dheg maxamed yaasiin dalkan hooye waa hodan markaan hubiyey dheegoowe waa miduu ilaahay u huray midhiyo hoobaane waa midaan habeen lagu qadayn dahabna hoos yaale waa midaanay heegiyo ka tegin waqal hilaacaaye waa miday hawadu qaali tahay iyo hadhcageeduye waa miday hawadu qaali tahay iyo hadhacageeduye waa miday horweyn daaqayo iyo adhi hadaafaaye waa miduu hadhuurkiiyo ka baxo raashin hawl yaree waa miday saliid iyo hurdaan hob iyo shidaale waa miday alaab heer saraa iyo dheeman hogataaye hilibkii kalluunka iyo wixii hodanti loo dhiibay waa miday badweyn oo hantii hooya leedahaye waa miduu dadkii himilalihi ka haqabeelaaye hadduuse qoom hiyiga tuu ka yahay hibo ma yeeshaan meelaha wax laga haybiyo ayay ka hondoloobaan higsi iyo ma keenaan inay horumar gaadhaane hantigooda iyo maamulka ahir u dhexeeyaa laabtay ku wada haysataa haajir iyo dhoofe weligii hanbuu daydaya hee canayluhoe dal raggiisu hana qaaday bay u hanqal taageen habqankooda waa taas sidii caymad loo helae tiyooda hadiyad muddo ay kufriga hoosta geliyeen waana hadaf gumaysigu wato iyo himilo shaydaane diintaa la haragsiibayaa hadina maysaane waxaa aniga nabar hoose iyo huqigu reebaya nimankaa hoggaamada haya kama hinaasaan cadowgay saxaabadu hireen hebedku nooloogiye hawadaabuu naga maamula gaal habeen lehee jeeroo hadayniyo rabbigay hiiliyo u dhiibo weli waa hor yaalla wixii hoos urahdidee afartaa halkaan doonayay iyo hilin ma qaadsiiye habeennimaanu dhalaan bay murtidu hawl ku leedahay ma habeey hadalkaygu waa hulatusuwaayeeli heeryadii gumaysi iyo mitigin hadimadiisii haddii beri hangool lagu eryaday haatan soo noqoye isagoo hanaankii bedelay heega soo celi hun madowa uu soo xidhay hun madowa wuu soo xidhay iyo haylayow kale isagoon hagaag loo arkayn hoosta lagu beeriye goortuu hareeraha u fiday kan hawl galay goortuu hareeraha u fiday
وكان هول قلاه هدها ونجا هدها يا ونجا وريه هيبتي دقنه هو يقوم مبدي نوع قلاه هاودو سيدي هو يحشر واركي نجا وجوين وتهوين كبركود هو يشديدين حقنا هلاوي يوحب له هلوسي مركزي حقاق لو فري هوك السيمينار waxay wagacan haadiyeen jariye haadaani hiigooduna waa heroy kala haleeyaan hawlaha socda waa waxaan hadal dhameyneen waxa haatan heed ku jira hanashadii qoysi wala hadaf gumaysi wato iyo himilo shaydaan diinta la haragsiibay hadina meysaan waxa aniga nabar hoose iyo huqigu reebay nimanka hogaamadaya kama inaasan cadaway saxaabadu hireen hebedku nooloogi hawada naga maamula قال هبال لي شيرو هذينيو ربيعه هيليو ديو ولي وهر يلا وحي سراريدي افرتان halkan doonay iyo hilin maqaadsi habeenimo ma wada labay murtidu hawl ku leedahay ma habay hadalkaygu waa hula tuswaayeel dad gumaysi heelada u tumay uu halaagsamay halinkeedu gabay waa inuu horor ku boobay haydartada inagu hayaan هاد كعيه إنما ذا هنكي لجدلي إهريتي مهود إنما ذا هنكي لجدلي إهريتي مهود إدور هو ذا إيجيو هو لف طويلة هاي قصوية جنتيو كجا حلاوي إن عورض إن هنتان لجوها لينيني في لماذا هريا لساوها لابين في لماذا هريا لا أي ساوها لابين وأنا هدف جميس ووطو إياه ميل الشيطان diinta la haragsiibaya hadina meysana waxa aniga nabar hoose iyo huqi u reebay nimanka hogaamadaya kama inaasan cadaway saxaabadu hireen hebedku nooloogi hawadabu naga maamula qaal habeed leeyahay jeero hadayniyo rabbiga hiiliyo u dhiibo wali waa hor yaala wuxuu suraadiyay tidaasu agaasiyadu ku eegtahay ay cagariga wali uu hor yaala wuxuu suraadiyay runtii gabay muc iyo miisaan bale أيها وحبضنا أذكر صوب نكتب كفافايسي وصرافنا قبل جاس بلشدي إنه صرافنا إن واحد سوق هذا دونا تحكي له كم ده سوقانت يمنسوين كبرسي قبل أذكر ما قاعد أفكر شعبك أي يسوقون الشري إن براتك قبل جاس فافاين كمان هذا كبحسه ورد قبل سايس كترجمة مرة قبل الآخرة يدو حكينا لفهمية بس سبب مركاين هديان واحد كتابتنا دائما إن يرد دولد مينان هين وحيابه لهم جوريسنا وحبضنا ما موضان معنى وحبضنا جابيه بتشيله ما كان شيء كبحط ليا تودي صلها ليا كلوا عنانا ليا كلوا وانين ليا قوت بدنا وترسنايا قوت بترسنايا قال واحد كي قوت كوي مركا أفكار الشعب كاساسكم قبله ولي قبيو حدو قبيو ما حليه هي موشد لك داره أما هو متيرس دونيو يمال لغو بيغو أما هو مسؤولني مرحبو يمعلن شان ليه السوى المشغول يقولين وان مدين تيريه كيون مريف لهاين بان عبدي ومدش كيناه ما هدوين كيس يهونتا أيالا إيقام مالاي ميل كيدا يقبو تحبان هرمي للعايه ميل كيدا يقبو تحبان هرمي للعايه متد كمان رشين نبضو ومرا لا بيراي ما يكون حدانا وميس عدالته مروحه صارينا وما تلو تري مسمرتدا كودانينا وما ملداعده محبو iyo markaas heelan shicibku moraale maxabo iyo markaas heelan shicibku moraale hadiise muruq la fayido iyo tolma lagu madiideeyo maranka fogeyn ba gudaha muranka ogmay ma shaqo iyo markaas ay tagtaa maalinka la guuri misalooyin jooga ayuu yahay gabaygu mahmaahe anigoon mucaaradad ku jirin ururna maagaynin waa inaan muwaaqic jira muuqda ka hadlaa waagi marorsiguna helay la isku maandhaafay mariyaay markuu yidhi ragi qaybta nagu maagay kaaraha mudleeya iyo halku miigu nagu laayay madfac iyo gantaalaha halkiina la muquursiiyey makasiyaalku aabaheed mariye baybaygu militariga xoog geli halku nagu maraanteeyey mahadaydu meeshay sidii miraha noo jiidhay waxay mawjadaysaba halkii guusha lagu maalay iyadoo marxaladii jirtay
iyo meydkii laga raystay oo mooraduugi ku dhacay soo marmaranayso annagoo malihii loo socday iyo midha rajaynayna oo weli bartii lagu mulkiyey meeris laga guurin musuqmaasuqii maxamed dile nagu mataaneeye musuqmaasuqii maxamed dile nagu mataaneeye maraakiib xawaaraynaysa iyo maamulkaasidee mid kastoonu maaree wax nidhi nooma meeldayin annagayna maareen sidii maahir caana leh milicda iyo waxay nagu liseen murux abaareeda meeshuu dadkani soo maray iyo maadii la ilowye ninba maalintiisu galshada maxse leeyahay ninba maalintiisu mu galshada maxse leeyahay kolba qaar muraad durugsan la mooyanoo tume madiixaan dhammaanaynin iyo muusiq lagu daaliye muddadii la gaadhaa way sii madowdahay maqaar kuma godlado goodirkii maqasha waaya mar haddaan macaan laga sugo iyo muudba lagu haynin mar labaad musbaar kuma gudbana inay masayrtahay talow yaa mas-uulka ah dadkani meel socon waaye afartaa halkaan muhanaye iyo miimakaygaasi cabdi iyo mataan maxamed iyo muhindiskii caynab muftigii xuseenay sidii qowdhan moomari meelaan maaga waa iga mamnuuc inaan ka maagaayo masana maaha hadalkii mugle iyo kii magaanyidhee nimankan muraadka walaha muu masale sheegay afar kalena way muuqataa yaan la moogaani haddii noloshani madaxeena taal mooska laga doono ama lala mashaawiro ragana marag ku siinayn mulxidka iyo gaalada haddii lala majaaliiso kaymahan maraaga haddii lagu xemeeraysto macdantaynu hayniyo haddaan maarkan la arkaynin oo aan la maamulan karayn malabkan hooraaye way madaluftaa xaajadii muhindis weydaaye way madaluftaa xaajadii muhindis weydaaye milguhu muwaadini lahaa waa la moogyahay mar halkii walaalnimo jidkuu marayay loo diidiye dadkaba waa la kala miidhaya inay midoobaan maqsinaa u kala oodan iyo moos qabyaaladee maqsino ayaa u kala oodan iyo miis qabyaaladee madluun baa la kala taagan yahay madax warkeedii matoor laydhan oogama adka iyo daba iyo maamuuse maqaldaaqa biyaha noo jiraanna lagu maydhayne markiiska iyo tacliintaa la gabay macallinkeedii iyo goobaha maryidkana qofkii maalle baa taga goobaha maryidkana qofkii maalle baa tagee mulkigay lahaayeen kuu mariyey jiilaalku een maararow lagu tabco iyo midhuga soo doogin meegaar bannaan iyo cidlay maati ku hayaane macluush iyagaa sida lagama maarayna afartaa halkaan muhanaye iyo miimakaygaasi cabdi iyo mataan maxamed iyo muhindiskii caynab muftigii xuseen iyo sidii qowdhan moomari meelaan maaga waa iga mamnuuc inaan ka maagaayo masana maa hadalkii mugle iyo kii magaan yidhi nimankan muraadka u lahaa mow masale sheegay afarkan way muuqataa in la mogaani godkan meedhan laamigan murxaday goofkan laga maagay ee suuqii gaadhigu maray lagu macaashayay dalkan wada musuqanee qalbigu muruga diidaayo mas-uulkii lahaabad inuu maqan yahay moodaaye mas-uulkii lahaabad inuu maqan yahay moodaaye haddana waa ka wada muuqataan maa yir iyo xooge maalkaynu hayniyo ma yara maadhka aasanee murankaa ku kala iibsataan maalin dhaafkaah miskiin qaday agoon marara iyo maqayo ooyeysa martibay idin tahay bulshadu maati iyo sheekhe macshar baa kitaab ugu martay ina midaysaan marse haddii la maydhaan waa meherad shaydaane mansab iyo intaad eegaysaan moodhar iyo xaasas ninba maalintiisa u iman mawdka geeridii mara la isku duubiya dhammaan iilkuwa umada leh maxakamadda weyn iyo qabrigaa la ysu marayaa intaynan dad maansuuqa noqon dib isu maareeya haddii kale maneenada ku suga meel xun naarta cajiib haddii kale maneenada ku suga meel xun naarta meel xun naarta waa gabay aan waxba ka tegin baan odhan karaa hadday tahay dhinaca habacsanaanta dhinaca maamulka hadday tahay waxqabad la-aanta hadday tahay wax badan oo dadka laftooda ay qabsan lahaayeen oo lagaga mashquulay muran iyo qabyaalad iyo wax la mid ah ilaahay subxaana watacaala dadka inuu fahamsiiyo sida danta ugu jirto ayaynu u baryaynaa intaa aynu kusoo dhaafnay isagana waxaa isaguna miiska inoo yaallaa gabay kale oo ka mid ah suugaantaada oo dhambaal halku dhegiisa uu ahaa dhambaal isaga qudhiisu waa fariin baan u gartay bulshada loo dirayo faahfaahin badan uma baahna isaga iska turjumaya wuxuu odhanayaa dhulka lagama doonee murtidu dhalasha weeyaane
anigoo dhallaanaan cabdiyow dhiil ka buuxsaday waa mar labadii cabdiwaaxid anigoo dhallaanaan cabdiyow dhiil ka buuxsaday aadna wuu dhadhamiya sidii dhayda caanaha dhaya la uma idhaahdee runtan dhabarka taabtaaye anigoo dhambaal iyo bulshadan talow dhiibaya anigoo sadkay dhaafayaan ugu dhawaaqaya dhijaama xareediyo anigoo dhereg la doonaya dhallinyariyo waayeel anigoo dhiiri gelinaya sidaan xalay tafaalada u dhigay waan dhexgelayaa alleeleh waxaan dhowrayaa inay dhegaystaan jilaal dhimbiilaha shitay iyo sebanka dheeraaday haddii uu dhirbaaxada la helo dhucig iyo maalka oo ay dhammaadaan wixii lagu dhibtoonayay wanka dhumcuda weyniyo haddii xayma laga dhaarto dhegta lama huwado xoolahoo dhaafay reeraha dhexda in rag waa xidhan jiray iyo dhiibyaha suune qaybihii dhammaaday iyo kuwii dhinac bannaanaaday dhudihii hoggaankiiyo sii dhiilka loo nugi dharaariyo habeen tacabka uu dhaabadayn jiray dhuub koo baxay iyo geedahoo dharabku duulaayo ninba dhanuu ka keenaba xeryaha dhalagumaansheeye dhurde lagama liito iyo shinnida lugaha dhuubnayde dhulka waxay wareegtaba dhirtay dhaamisaa malabe iyaduba haddii aanay dhigin dhaxal ma reebteene dhudhunkan itaalkiisa ogay dhefsi aadmigue dadkayagoo dhallaaniyo matiid dhimirkii waalaaye dhadhamada caloosha iyo mirqaan dhinaca loo jiifo dhaatada ku beerane rag baanay dhaafin labadaase dhaqashiyo cibaadadaba waa dhaliilaaye rabbina dhowrsanaantuu nimcada soo dhex mariyaaye ifkan waxaa ilaahay u dhigay maha dhalanteede qofkan dhaadahaynow xisaab dheereeran weeyaane dharaar baa la kala raacaya labada dhuumoode nin waliba halku hawsha dhigo dhaqayadeed maaliye intaan la dhaadhicin wakhti wuu isdhurayaa dhaqsadoo ka kaca nolosha waa laga dhabsheegaaye afartaan ma dhalan dhooliye dhabad ma u yeelay miyaan ereyga dhabanlooxadiyo dheeliga u diiday afar kalena way dhimantay keena dhegihiinna hubkan dunidu dheeldheeliday iyo dhaadashiyo faankan dhawaaqiyo isgaadhsiintan iyo dhalowdan yeedhaysa dhaweeyahan la haystay qofkoon dhalanin sheegaya dheehashadan la yaabkaa ee dadka dhoofay kula joogo dayuuradahan dheeraynaya iyo waxaan isdhaafaya dhulkaa laga sameeyey nimcadu dhiga ilaahay nimankaa dhaqaalaha kasbaday ee samada dheelaaya umay dhalana waa u dhabarjabeen kuna dhibtoodeene iyagoon dhalaal hayninbay dhab isu taageene maskaxdii waxay dhihi jireen hadaf dhalaareed dhanna way u wada jeedsadeen una dhaqaaqeene markaasay dhirtiiyo ciidda iyo dhagaxa shiileene dheemantiyo markaasay ladha halkaasnaa cilmi dheefsaya iyo rafaad guul ku dhaliyaaba rooc baan helaynine ninkii dhiiday limaay dadkayagoo dhallaaniyo matiid dhimirkii waalaaye dhurde lagama liitiyo shinnidii lugaha dhuubnayde dhulka waxay wareegtaa dhirta dhaamisaa malabe iyaduba haddii aanay dhigin dhaxal ma reebteen dhudhunkan intaalkiisa ogey dheefsay aadmiguye dadkayagoo dhallaaniyo matiid dhimirkii waalaaye dhadhamada caloosha iyo mirqaan dhinaca loo jiifo dhaatada ku beeran rag baanay dhaafin labadaase dhaqashiyo cibaadada waa dhaliilaaye rabbina dhowrsanaantuu nimcada soo dhex mariyaa ifkan waxa ilaahay u dhigay maha dhalanteede qofkan dhaadahaynow xisaab dheereeran weeyaane dharaar baa la kala raacaya labada dhuumoode nin waliba halku hawsha dhigo dhaqayadeed maaliye inta aan la dhaadhicin wakhti wuu isdhurayaa dhaqsadoo ka kaca nolosha laga dhabsheegaaye afartaana ma dhalan dhooliye dhaabad ma u yeelay miyaan ereyga dhabanlooxadiiyo dheeliga u diiday afar kale way dhimantee kena dhegiina dhabeel dumarah iyo gaari waa dhidibka reeraae lafta dhabarka weeye iyo xubnaha laga dhaqaaqaae dhaqaalaha haddii aanay wadin lama dhisnaadeene dhaqankii ayeeyo iyo cilmi bay dhaxalu haystaane dhaadhicinta hawshiiga farsamo wax loo dhigay durba subaga kama soo dhuftaan dhayda caanaha dhanaan iyo waxaa lala sugaa dhaqan la raacaaye dhita laba habeena iyo biyaa laysdhexgeliyaaye dhigaatiga la sooyiyo haddii helayga loo dhuujo dhucdaa lagaga saara barqada hama loo dhaye dheeldheelle hawleed waxay dhinac u riixaanba dhuguma waxay u leeyihin markuu dhool ka soo go'ae haddii ay hadhow kala dhigaan boosta iyo dhiilka
subagoo dhadhaabaha u eg dhuraha loo qaadi subagoo dhadhaabaha u eg dhuraha loo qaadiye ma dhalaaliyaan maalintaba ee dhowr cisho oo hadhee dhasiiskiiya waxaa laga jiraa inuu dhasoobaye goortuu shinkiisii u dhacay dhamacda loo oogiye haddaan wiig la dhooddoodine joogma dhaansamee kol haddii qumbihii loo dhigay iyo weelka laga dhoobo dhaqsa uma furaan iyo intay dharaba haystaan haddii aanay soo dhicin martidii ehelku dhowraay ama aanu dhaahiran wakhtigu uma dhowaadane dhayal looma soo horreyn dhocre waa kayde durdi lagama liito iyo shinida lagu hadhuubnayde dhulkii waxay wareegtaba dhirtay dhaamisaama labe iyaduba haddii aanay dhigin dhaxal ma reebtee dhudhunkaan itaalkiisa ogey dhefsi aadmigeyn dadkaygow dhallaaniye ma tihid dhimirkii waa laga dhadhamada calooshiyo mirqaan dhinaca loo jiifo dhaatada ku beeran rag baanay dhaafin labadaase dhaqashii cibaadaba waa idin dhaliilaaye rabbina dhowrsaantu nimcada soo dhex mariyaaye ifkan waxa ilaahay u dhigay maha dhalanteede qofkan dhaadahaynoo xisaab dheereeran weeyaane dharaar baa la kala raacaya labada dhuumoode qof waliba halku hawsha dhigo dhaqayadeedii maaliye intaan la dhaadhicin wakhtigu waa is-urayaa dhaqsadoo ka kaca nolosha waa laga dhab sheegaaye kaasiyaarkaasiinagu dhanyi dhaqsadoo ka kaca nolosha waa laga dhab sheegaaye waa gabay runtii dhambaal iyo fariinba gudbinaya mudanna in loo dhow yeesho aad iyo aad baad mahadsantay abwaan iida cabdi kabadhe oo toddobaadkan barnaamijka suugaanta ee rugta ururinta suugaanta iyo sooyaalka ee qalinsoor marti noogu ahaa toddobaadada dambe intaynu isugu imidna barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddii nolosha